saaxiibtinimada isboortiga way ka fiican tahay tan siyaasadda marka la barbar dhigo muddada dheer. Turkiga iyo Maraykanka ayaa Istanbul ku wada tababaranaya koox kubadda cagta ee Maraykanka. Loolanka halkan waa mid saaxiibtinimo kana yar midka u dhaxeeya dalalkooda. dalalkan isbahaysiga NATO ah ayaa isku khilaafsan arrimaha Suuriya, siyaasadda iyo xuquuqda aadanaha. waxayna joojiyeen sanadkii hore fiisooyinka. waxaa halkan laga dareemayaa xiriir khilaaf leh. jawiga siyaasadeed hadda ma ogin waxa saxda ah ee dhici doona. waxaana filayaa in hogaamiyaasha labada dal ay dabeecaddooda degdeg u kacdo sida hore loogu arkay xayiraaddii fiisaha. marka laba waddan oo waaweyn hogaaminayaan laba qof oo caqliyadda noocan leh ma saadaalin kartid waxa berri ama beri dambe dhici doona. turkiga waxa uu hadda duqaynayaa dagaalyahanada kurdiyiinta Suuriya ee Maraykanka hubeeyey. Ankara waxaa looga arkaa argagixiso. Washingtonna waxay saaxiib kula tahay dagaalka kooxda la baxday dawladda Islaamka. khatarta tooska uga dhalan karta labada dal ee ugu xoogga weyn NATO ayaa kordhaysa. dhib kuma qabno Maraykanka. isku si ayay dhibaatada noo gaartay. dagaal ayaan wada galnay. 30,000 ayaa waddankan ku dhimatay sababo la xiriira urur argagixiso. marka aan fiirino Maraykanka waxa ay siinayaan rasaas, qubaro, ciidamada Maraykanka way tababarayaan. marka waxaan filayaa inay tahay halkii aan wax ka bilaabi lahayn. khilaafka ayaa sii fogaaday markii wadaadka Maraykanka ku nool Fethullah Gulen lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay. iyadoo ay adag tahay in la dhiibo wadaadka, waxay Turkiga xireen shaqaale diblomaasiyiin Maraykan ah, taas oo ka caraysiisay Washington. waxayna saadaasha codaynta muujinaysaa in 3 meelood 2 meel halkan looga arko Maraykanka khatarta ugu weyn ee Turkiga. xiriirka muhiimadda u leh amniga iyo beecmushtarka ayaa halkii ugu xumaa 10 sano joogo. ardayda Turkiga ee rajaynaya inay Maraykanka wax ku bartaan ayaa si walwal ula socda khilaafkan baahsan ee qabsaday. marka aad ruux ku tiraahdo Maraykanka ayaan wax ku baranayaa, gaar ahaan qaybaha bari ee Turkiga, ma jeclaysanayaan taas. waxay u malaynayaan inaad tahay qof dalkiisa qiyaamaya. marka aan ku soo laabanno goobta kubadda cagta, tababar ayay samaynayaan Maraykanka iyo Turkiga, balse waxaa adag in hogaamiyaashooda ay xalliyaan khilaafkan.